دكتور عبد الرحمن علمي أوبسية oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee gobolka Awdal takhasus dheeraadana u leh xanuunada indhaha oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay waxbana kama jiraan uu ku tilmaamay inayna jirin dawo indhaha marka lagu shubo ay qofka ishu ka soo dhacayso arrintan ayaa daba socotay kadib markii telefishanka MMTV uu qabtay dood ku saabsan dhinacyada dawooyinka doodaas oo ay ka qayb gashay hooyo sheegtay in ilmaheeda dawo indhaha kaga shubtay ay sababtay inay ishu ka soo dhacdo hase ahaatee Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye ayaa ka hadlay xanuunada u sababta ah inay ishu soo dhacdo doctorka oo si qoto dheer uga hadlaya arintani ayaa waxa uu yiri magacayga waxa la yiraahdaa Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye oo ka howlgala jaamacadda Adal Medical University isla markaana ka howlgalaya isbitaalka Adal International Hospital ee Boorama ku yaala Adal International Hospital waxaa ka howlgala ardayda iyo lagu tababaraa ardayda culumta indhaha barata ayaan aniguna macallin u ahay muddo badan baan ka shaqeynayay ilaa muddo dhowr iyo 30 sano ayaan ka shaqeynay cudurrada indhaha waxaan arkay TV-ga MMTV oo waraysi la yeeshay Maxamed Ilig hooyo ilmaheegii ilmo yar wadata ilmo yar 10 jira ilmahaasi oo ay tiri dawa lagu shubay indhaha lagu shubay kabacdina indhihii baa ka soo dhacay taasaan rabaa inaan ka yiraahdo waa run weeyaan hooyadu way cabashan kartaa dhibaatadii way sheegan kartaa wixii jira way sheegi kartaa laakiin waxa weeyaan dadkina aad baa looga xumaaday meesha joogay waa run qofkii hooyadii la caawiyo weeyaan laakiin dhibaatada ku dhacday baan hooyada ayaan rabaa inaan sheego xanuunada ku dhaca oo keeni kara waxyaabahaas laakiin aanay keeni karin dawo lagu shubay oo isha soo ridi kartaa aanay keeni karin taasaan wax ka sheegi doonaa hadii la yiraahdo waa jiraan xanuuno sidaas oo kala ah oo keena moogteen cudurrada indhuhu maxay ay ishu soo dhacdo ishu marka hore khafiif ay noqonaysaa marka khafiif noqoto buudi baa soo khafiif noqonaysaa marka bacdi way soo baxaysaa ishu way soo dhici kartaa xanuunadaasi waxa keena maxay vitamin deficiency wax la yiraahdo oo qofka ilmaha waxa ku dhacaya buudi baa khafiif noqonaysaa kabacdi nafaqad waxaana u sababa nafaqad darrada xanuunada marka waxay u badan yihiin dadka moogtay nafaqad darrada aad ugu yar tahay aan awood lahayn moogtay inay nafaqooyinka ka qayb galaan waxaana u badan yihiin wadamada dariskeena Itoobiya kale iyo Suudaan iyo Egypt laakiin Soomaaliya uu ku yar yahay iyo Somaliland aad buu ugu yar yahay xanuunadaas ayaa u sabab noqon karta laakiin maanu arag intaan dhowr sano shaqeynay dawo moogtay lagu shubo moogtay ilmaha soo rida isha soo ridaysa waxa ma jirto laguma la taageelin dawooyinkana waa daweyn soo baaray weeyaan oo la soo hubiyay weeyaan dhakhaatiirtuna kuma tala galaan ama warshado gaar ah iyagu ma lahood oo ay dawada ku soo sameeyaan oo iyagu tala galaan qofka ma ay tahay is qabtaan ama dhibaato dadku ku abuuraan laguma tala gelin dhakhaatiirtu waa dhakhaatiir weeyaan markii horeba markay soo qalan jabiyo wala dhaariyaa waa lagu dhaarinayaa in dalka iyo dadkaba si daacad ugu shaqeynayaan mana jirtaan filaya Somaliland meel dawo dhakhaatiirtu ku sameystaan oo gaar loogu sameeyaa oo dad gaar ay ugu tala galaan ma jirto saas awgeed dadweynaha daawaday TV-ga waxaan ogeysiinayaa in arrimahaasi aad looga fiirsado wariyaashu hatta maxay kamay qabiil dhakhaatiir indhaha uma yeedhin oo arinta ka jawaaba inkastoo agaasimi maxay wasaaradda caafimaadku joogay laakiin haddana aqoon badan durugsan uma lahayn waxa markaas arrimahaas oo kale waxa looga baahan yahay in dhakhaatiirta cudurrada indhuhu ka qayb galaan doodaas oo kale loo yeero ay ka jawaabi karaan geesta kale su'aalkiisa sii wata Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye ayaa waxa uu sheegay waxyaabaha lagu daweyn karo xanuunadaasi waxana uu yiri marka xanuunadaas oo kale waxa lagu daweyn karaa vitamin deficiency baa la yiraahdaa waxa lagu daweyn karaa dawooyinka maxay vitaminka waxa kale oo ku jira maxay waxyaabaha beerano carrot-kii baa ku jira caanihi baa ku jira beerkii baa ku jira ukunta kalluunka waxa soo dhanba waxa ku jiraan vitamin A-ga ilmaha soo kale ku dhacay marka waxaad arkaysay in maxay ishu ay cadaan noqotay ishu tan mid ma muuqatay mid goof ay bahaydba mid cadaan bay ahayd waa sababaha keenaya ka mid tahay vitamin deficiency tan cadaanka markay noqoto khafiif ay noqonaysaa ka bacdi ishu way soo dhacaysaa takala already takala isha sawirka malaad ka aragsan
waxaad ku arkaysaan moogtay isha kale inay goof tahay oo ka maqan tahay taasina waxa weeye markay khafiif noqotay way soo dhacday waxaa sabab sababa dawooyinkaasina waa muhiim moogtay in hooyooyinku ay carruurtooda siiyaan kaaroodkii beerkii caanihii kalluunka waxyaabaha in la siiyo moogtay intaasina waa muhiim dawayntii ilmaha markay yar yihiin intaa la siiyo weeye Sakariya Cabdishaafar Sakariya Saxani magaalada Boorama.